waxaan salaanta ciida soonfur aan u direeyaa dhammaan ummadda islaamka ah meel kastay joogto ummadda reer Somaliland waxaan kaloo u direeyaa dhammaan qoyskayga iyo caruurta iyo dhammaan ehelka waxaan kaloo u direeyaa si gaar ah salaan ugu direeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee aanu asxaabta nahay ee aanu wada shaqayno dhammaan baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak ciidkiisa Allah inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka dadka reer Somaliland waalidkayga carruurtayda waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland hooyaday aabahay ehelkayga waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa Fadxi Cali Axmed bismillaah alxamdulillaah marka hore waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan caalamul islaam oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka marka labaad waxaan salaamayaa gaar ahaan ummadda reer Somaliland ugu horeeya madaxweynaha qaranka Somaliland waxaan leeyahay salaan sariiga guddooma waxaan salaanta ku bilaabayaa hooyaday macaan Xabiiba Cabdilaahi Guuleed iyo xaasaskayga oo ay u horeyso Marwo Nasra Xasan Xaaji Ismaaciil Marwo Warda Aadan Ciise waxaan kaloo salaamayaa Marwo Hinda Aw Maxamed Maaweel waxaan salaamayaa dhammaan carruurtayda oo kala ah Nimcaayaan Fadxi Cali إدريس فتحي علي عبد الرحمن فتحي علي عبد الرزاق فتحي علي عبد الشكور فتحي علي إيو عبد الفتاح فتحي علي وردة فتحي علي إيو هبة فتحي علي لما وحن سلامة يا أوكله الكيجي يقرأ بضيضة يا أصحاب طيضة أبير عبد الله أحمد حاج عبد الله وحن سلامة يا أحمد عبد الله أحمد هبة عبد الله أحمد محمد عبد الله أحمد iyo aadan Cabdullaahi Axmed waxa kale oo salaamayaa nin la yiraahdo Xariir Aw Daahir oo saaxiib gaar ah isagu waxaan salaamayaa oo kale inta taqaana magacayga iyo muuqayga waxaan si gaar ah mar labaad u salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo guud ahaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo aan leeyahay waa kuwa aynaan la'aantood waxba qabsan karin waxay naga mudan yihiin salaan sare iyaga iyo xaasaskoodaba wabillahi tawfiiq magacaygu alxamdulillah maanta waa maalin aad u farxad badan waa maalin ciida dhammaan dadweynaha adduunka ku kala nool ee muslimiinta waxaan leeyahay kulli aam wa antum bil khayr dhammaan waxaan salaamayaa muslimiintii soo soomaneed bisha Ramadaan waxaan leeyahay maanta waa farxad aad iyo aad u qaaliya dareenkayga lama soo koobi karo waxaan salaamayaa dhammaan wixii magacayga iyo muuqayga yaqaana waxaanu joognaa shaqadii hoteelka Mansoor Hotel annagoo hadda ku sugan shaqadayadii gudanayna waxaanu aad u amaanaynaa TV-ga qaranka ee sida wanaagsan noo soo booqday ee dareenkayaga wax naga weydiiyay waxaanu leenahay maanta maalin la soo koobi kara maaha dhammaan waxaanu leenahay muslimiinta waa maalin farxada waa maalin qiimo leh waa maalin qaayale alxamdulillah waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay ku nooshahay maalintan ciid al-adha ciid al-fidri aawadeed baa waxaan idin leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo ajar iyo xasanaadna naga siiyo fadaa'ishi badanayd iyo aynu soo gudanay annaga oo kooxdii Mansoor Hotel waxaan salaam labaad ugu celinayaa muslimiinta waxaan salaamayaa inay Somaliland gaar ahaan meel kasta oo ay joogaan ciidamada madaxda mas'uuliyiinta madaxweynaha iyo hooyaday oo igu qaaliya ugaasa Cabdi Maxamed baan salaamayaa maanta waa maalin qaaliya oo ciid mubaarak alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle ciida aynu bashbash iyo barwaaqo ku ciidnay ilaahay naga aqbalo xamaashaynu soo wadnay bisha Ramadaan oo bil qaaliya oo muslimiintu ay ka faa'iideystaan dhammaan muslimiinta wadanka gudaheisa iyo dibadiisaba ku nool waxaan leeyahay farxad ku ciida alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oon leeyahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin mar hadduu ilaahay iiddaa iyo iiddeeda kaleba farxad inagu gaadhsiiyo waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa ciidanka qaranka oo la-aantood aynaan halkaa ku ciidneen oo ilaahay mahadiya ilaahay ka sokow dee ammaanka inoo sugaya waxaan leenahay farxad ku ciida dhammaan kulli caam wa antum bilkhayr waxaan salaamayaa xaggan faamiligan haddaan u soo dego waxaan ka salaamayaa hooyaday nimco ismaaciil xuseen oon leeyahay farxad ku ciid alxamdulilahi rabbilcaalamiin faamiliga oo dhan intii magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaanu ku sugannahay iminka shaqaalihii maasoor hotel waxaan salaamayaa hoteelka shaqaalo oo dhan ilaa madaxdiisa ilaa inta hoose waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda somalilan ee waddankeenna iyo dhammaan dadkoo dhan waxaan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya kulli caama bilkhayr marka ilaahay khayrka hayna waafajiyo somalilanna runtii maanta si fiican ayaa looga ciiday waana nabad waana barwaaqo roobkiina xalay toole wuu daay marka halkan waxaan si gaara uga salaamayaa xaaskayga kinsi ismaaciil iyo carruurtayda warsame yoonis axmeddaad iyo suhayb iyo subayr iyo yuusuf dhammaantiin waad wada salaamantiin reer somalilan waxaan leeyahay ciid mubaarak